اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. maanta oo maalin Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha 3 2022 waafaqsanna 13 Shacbaan 1443 waxaa maanta gabagaba noo ah tartankii sanadusiyeedka 2021-2022 maantana waxaa tartamaya labada fasal ee kala ah fasalka afaraad iyo fasalka tobanaad form 2 ardayda u kala tartamaysa labada fasal haddaan ku horeeyo fasalka afaraad waxaa u tartamaya Axmed Maxamed Cabdi, Asmaa Maxamuud Sheekh Meeris, Maxamed Bashiir Cabdi, Mushtaaq Cusmaan Maxamed, Salmaan Cabdixamiid Cabdullaahi, Suhayb Cabdixamiid Cabdullaahi, Israa Maxamuud Sheekh Meeris. kuwaas waxay ahaayeen ardayda u tartamaysa fasalka afaraad. fasalka dhigooda fasalka tobanaad waxaa u tartamaya ayagana Cabdikaafi Xasan Axmed, Cabdirasaaq Cabdikariin Cabdisamad, Cabdullaahi Daahir Cabdi, Faadumo Jamaal Cabdullaahi, Farxaan Cabdirashiid Cali, Maryama Maxamed Xasan, Maxamuud Xuseen Maxamed. insha Allah kuwaas waxay ahaayeen ardayda magacyadooda u kala tartamaysa fasalada fasal. haddaan u gudbo lambarka qoratuurka ku xusan laba lambara meesha taalo 34 37 ay kala qabsanayaan ardada. laba arday soo kala dirsada labadaas lambar kala qabsada insha Allah. Assalaamu calaykum anoo yahay magacay Maxamed Xuseen Maxamed oo ka soo tartamayaasha fasalka tobnaad waxaa qabsanay 37. وحنانكم جود يجود الله بسم الله مقعي سويب حميد عبد الله كان سعود ترتميات فصل كأفراد منبرك قبسنا صد يافر وبطالب أمضي فمن منكم. بسم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما تسكله lambarkii loo asteeyay lambarkii qoratuurka loo asteeyay waxaa qabsaday fasalka afaraad waana 34 lambarka u jeedaan waa kaas ayagana ma taqaanaa dhow su'aasha lagu bilaabi doona intaan su'aalaha bilaabin waxaan yeeri doonaa maadooyinka lambarada ay ku xusan yihiin. haddaan ku horeeyo fasalka afaraad lambarada aan yeerina qalin waraaq diyaarsada 440 444 452 454 465 469 471 474 480 ayee fasalka tobanaad 485 487 490 492 494 496 499 506 508 510 513 515 aan filayna qorateen fasalka afaraad arday soo dirsan lambarni qabto insha Allah. بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جو مجا حمد محمد يوسف تنصع ترتمياش فصل كعفرات لمركا قبسدا فر بقول لحدا نيشان أجر في إتمامي أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود خير. fasalka afaraad lambarka qabsadeen waxaa ku xusan maadada cilmiga bulshada. su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan: sheeg qaybaha uu ka kooban yahay muqaadhuleedka dabiiciga ah ee Soomaaliya. mar labaad aan ku celiyo su-aashu waa su-aal cilmiga bulshada waxayna u dhacaysaa sidatan: sheeg qaybaha uu ka kooban yahay muqaadhuleedka dabiiciga ee Soomaaliya.
mar saddexaad aan ku celiyo su-aashu waa su-aal cilmiga bulshada waxayna u dhacaysaa sidatan sheeg qaybaha uu ka kooban yahay muuqaal dhuleedka dabiiciga ah ee Soomaaliya. waxaan filayaa inaad fahanteen oo aad ka warceli doontaan insha Allah. taariikh abwaan hore tirsha waxay tilmaamaysay taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane hadday midigtu kali taagan tahay taar ma goyseene tukalo labaadoo jirtana waxay tibaaxaysay tobankii nin ee abbahoo talaada weyn siiyey tabtu wax ugu sheegay ee murtida ugu tayagooday midnimadu wanaagga ay tartiyo toosta kala yaaco tijaabada siduu ugu sharxiyo qodobadu taabtay wanaagu tashigu leeyahay hina tusaysaaye anna waxaan tusaalooyinka taxan u soo qaatay tixyaro wax sheegiyo inaan wanaag bismillaah anigoo magay xamdi maxamed yuusuf haddaa su-aasha jawaabteesu dayo guban buuraasi silid goolis oogo dooxada nugaal deex iyo gobolada dhoobey fasalka afaraad su-aashii la weydiiyey ahayd su-aal cilmiga bulshada una dhacaysay sheeg qaybaha uu ka kooban yahay muuqaal dhuleedka dabiiciga ee Soomaaliya. haddii jawaabtii ka bixiyeen waa mid qalad aan ahayn. tobanaad arday soo dirsan lamkan qabto. bismillaah magacayga cabdikaab xasan maxaa kana socota meesha fasalka form 2 lambarka qabsanayna waa 490. bismillaah fasalka tobanaad nambarka qabsadeen waxaa ku xusan maadada chemistry-ga. su-aasha waxay u dhacaysaa sida soo socota define ionic bond. haddii mar labaad aan ku celiyo su-aasha waa su-aal chemistry ah waxayna u dhacaysaa sida tan define ionic bond. haddii mar saddexaad aan ku celiyo su-aasha waa su-aal chemistry ah waxayna u dhacaysaa sida tan define ionic bond. waxaan filayaa inaad fahanteen oo aad ka warceli doontaan biidni illaah. tartanka adduunyada socdeen iniba meel tiigsan tallaabada si aad ula heshaan dunidan tooraysay dadkaygo wixii kala tagiyo toos xundhaalinaya ka toosmaystahoo taxadaro meel iskaga tuura istixgeliya oo wada tashada oo tub wada qaada jahligiyo saboolkana tirtira tacabna soo saarta ubadkana tacliintiyo cilmiga toosu wadageeya istabaabushayn midnimo idinka. bismillaah magacayga farxaan cabdi cali kana socda tartamayaasha fasalka tobanaad. su-aal jawaabteedaan isku dayo ionic bond is a bond between metal and non-metal atoms as a result of an electron transfer. bismillaah su-aashii la weydiiyey fasalka tobanaad ee ahayd su-aal chemistry ee una dhacaysay define ionic bond. haddaba jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah. اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر فمن الذي سينيرني إظلامي. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. الله سبحانه وتعالى mahad iska leh saakay tartankii inoo bilaawday qeybtiisii hore inuu dhameeyey. haddaan baahino sheegno dhibcaha labada fasal qeybihii hore ay kala keensadeen. haddaan ku horeeyo fasalka afaraad waxaa la weydiiyey 4 su-aal la weydiiyey. 4 su-aal la weydiiyey dhammaan way wada garteen way ka wada jawaabeen. dhibco waxay haystaan 8 dhibcood halkaas. halka dhigooda fasalka tobanaad ayaga la weydiiyey 4 su-aal 4toodii si sax ay wada jawaabeen halkaasna waxay ku haystaan dhibco dhan 8 dhibcood. intaas waxay ahaayeen labada fasal qeybihii hore natiijada ama dhibcay kala keensadeen. waxaan u gudbaynaa taageerayaasha iyo codadkooda aan dhegeysan doona waan daawanayna insha Allah.
وأعود خريجا لأرضي اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني سلامي أنا كسو جيد فصلك كورسو مقعي وياهي عبد الرحمن عبد الله حسين وحانا ترتمع فصلك توانات يوس فصلك أفراد وحان عدكي نسيد دونا فصلك أفراد قولوا عن فمن الذي سينير لي إظلامي أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جودوا يجود الله بالإنعام جودوا يجود الله بالإنعام أنا طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي عبد الحد بوطان oo ka socda fasalka shanaad waxa halkan ku tartamaya fasalada kala afraad iyo tobanaad anoo isku duwan waxa codeynaa fasalka afraad guul wacan مهاجرين وبين أنصار بخير وآمين فاسلك طريق المصطفى متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام بالعلم. بسم الله أنا مقعد يا هاني عبد الرحمن صالح أو قصة على فترة الحاد ما تمشي وحق ترتيب دونا ولا له هنا فانتو يا أفراد أنا قص كده بنعد كأنه حاسين هنا جلس أفراد كل وعن وأعود خريجا لأرضي اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدام. السلام عليكم. anigoo ah magay Cabdullaahi Mursal kana socda galaaska toddobaad halkan waxaan ku tartamaya afraad iyo tobanaad anigoo isku duwan waxa taageereynaa afraad guul wacan سينير لي إظلامي أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جودوا يجود الله بسم الله أنا ومي عتكيني هذه إنه عيسى كنا صعود فصل كزداد waxaa arbacada tartami doona fasalka afraad iyo tobanaad waxaa ninka isku duwan taageersanaa fasalka afraad tobanaad waxaa dhiilay waa soo daashay in badan laakiin afraad anaga badinaan قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بخير وآمين فاسلك. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وفوزية نور عمر waxaan ka socdaa fasalka 8 B waxaan meeshan ku tartamaya fasalada kala ah fasalka tobnaad iyo fasalka afraad waxaan codkeena siinaynaa fasalka tobnaad guul wacan كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرضي اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به. بسم الله أنا مقعد حابد علي كنا صعد فصلك سيارات halkan maanta waxaa ku tartamaya fasalka afraad ee fasalka famto anigoo isku duwan waxaa codkeena siinay fasalka famto guul wacan مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم. أنا مقعد سكرين محمد يوسف وأنا كسعد فصلك فمتلي waxaan tartamaya fasalka afraad iyo tobanaad waxaa u codeynaa afraad guul wacan فمن منكم يوائمني على الأيام قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بخير وآمين فاسلك طريق. بسم الله أنا عبد عبدالله محمود كان سعد جلاسك فانفور ماشى وحكو ترتمايو جلاسك فانتو إيه أفراد anagoo isku duwan fanfoor ahaan waxaa taageeroonaa galaaska afraad guul wacan insha Allah. أجر في إتمامي أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرضي
اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر فمن الذي سينيرني بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد intaas waxay ahaayeen taageerayaasha iyo fasalada si loo kala taageeray haddana waxaa usii gudbaynaa tartankeenii ayaa sii wadanaynaa saanka waxaa lagu bilaabay su-aasha fasalka afaraad ayagaana haddeertaan su-aasha lagu bilaabi doonaa arday soo dirsada fasalka afaraad منكم يوائمني على الأيام قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بخير وآم فاسلك طريق المصطفى متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام بالعلم سوف أعود أبني بلدتي شارك أخاك الأجر في إتمامي أمسك يدي كي تستقيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد الله سبحانه وتعالى ما تسكله inoo suurtageliyey saakay subaxnimo tartankii inoo bilaawday gabagabadiisii aan u taagannahay iyo tartankii guudba oo sanadusyeedka noo bilaawday haddaan sheegno dhibcaha labada fasal ay kala keensadeen qaybihii hore waxaa la isweydiiyey 4 su'aal sida caadatan waxaa la isweydiiyey 4 su'aal haddaan ku helay fasalka afaraad waxaa la weydiiyey 4 su'aal afartii su'aal la weydiiyey qaybta hore si sax ay wada jawaabeen 8 dhibcood ay halkaas ku haystaan qaybtii dambe waxaa la weydiiyey 3 su'aal saddexdii la weydiiyey 2 ka mid ay saxeen 1 ka mid way qaldeen halkaas dhibco guud waxay ku haystaan 12 dhibcood fasalka afraad halka dhigooda fasalka 10aad la weydiiyey qaybta hore 4 su'aal afarta su'aal la weydiiyey si sax ay wada jawaabeen qaybta dambena waxaa la weydiiyey 3 su'aal saddexda su'aal la weydiiyey si sax ay wada jawaabeen halkaas dhibco guud wadarteedu tahay ayay haystaan 14 dhibcood maantana guusha waxay raacday loo hambalyeena fasalka 10aad guul wacan insha Allah waxaa la fariistay 6 iyo barkii ahayd adkaarta la akhriyay ka bacdina waa la gala tartanka haddana waxaa la joogaa 8 iyo Soomaa iyo Gogo marka taas waxay muujinaysaa marka dadaal badan inuu jiro tartanka haddii waqtigiisa la bilaabi lahaa waxay caddeynaysaa in 3 saac iyo abaf la isla gaari lahay su'aaluhuna waxaa waaye si fiican ay u dheeraayeen umaleha su'aalaha faafa iyo jabjab ma jirin maasha Allah halkaas markaan uga soo gudubno meeshaan muhiimadda loo socday waxaa waaye oo loo socday oo intaas aan u soconay in ardadeennu cilmiga ka tartamaya kaliya maana ka fadhiya xataa marka galaaska su'aal la weydiinayo inuu maskaxda ku shubto oo fahmo oo maarata su'aashaas galaaska la weydiinay inay tahay su'aal muhiima asoo maarata buuga dhan wada muhiim yahay iyo ardayga iyo maadooyinka oo qaatay meel uu lambar leentii loo tixo midda u soo baxda la weydiiyo ayada laftirkeeda waxaa weeye ardayga maado gooni inta soo akhrin maado gooni oo sidin taas dooro taasna ha ku dhaafto marka waxaasoo dhan ujeedada laga leeyahay waxaa waaye in ardadu cilmiga ay barteen maskaxdooda lagu culo culay ma taqaanin haamaha markii qoryaha lagu shubaana qoryaha qiiqaayo way carfaan Soomaa markaas ka bacdi caanaha lagu shubaa culaygii waaye marka waa leedin culay muhiimadda halkaas waaye insha Allah taala meeshuna fasalada waxaa waaye min galaaska saddexaad oo subax ka bilaabana ilaa galaaska form 4 oo soo tartameen ilaahay calaf waxa ugu diray maanta in finalka ay imaadaan galaaska afraad iyo galaaska 10aad ama form 2 ayaguna hadda meeshu hal hadiyada taalmo hal bacmadow taalo bacmadooda marka qolada la tagi lahayd maana lama wada qaadanayo waxaana loogu talagalaa mar walba qolada badan fasalka badan hadiyada loo soo diyaariyaa tir ahaan macnaha ardayda iyo marka laga hadlayo kadibna qoladii yar haday qaadataan waa ka haday qolada badan qaadataan nasiibkood had saakay galaaska saddexaad afraad waxay ahaayeen 37 arday
galaas kalena waxay ahayn 34 arday ahaayeen kan 37 la soo diyaariyay hadiidiis sababta mar walba waxa lagu xisaabtamaa xarigan ii gaabi waa la helaa Soomaa laakiin ii dheere ma la helaa xarigan ii kab wixii waa maqan yihiin waa ceeb ay ma noqonaysaa Soomaa waxa muuqanaysa inuu leeyahay macallimiinta dadka yar la jeclaayeen oo groupka yar inay badiyaan marka macallin la ogyahay beesadaas aan u diray xataa soo sarifkaas aan u diray si marqaati leega noqdo hadhow oo la yiraahdo baash alla leeyahay marka insha Allah taala meesha waxa ku jiro 2,350,000 oo shil Soomaaliya ku jirto beeso bacmadow waay Soomaalida Suuriyada bacmadow la bixin jiray Soomaa hadda Suuriyada aqoontan bixinayna insha Allah taala oo bacmadow waxaana gudoomahay macallinkooda gudoomahay laakiin waxa laga horeeyaa maadaama meesha cilmi lagu tartamay fikrada labada fasal ma sahlin waa ogtiin Soomaa ayaga fikir ma dhiiban ujeedada waxay ahayd maadaama awal oo hordhac ay ahaan jirtay hadda waxa gadaal loogu bedelay in labada arday ay fahmaan inay tahay wax lagu tartamaa cilmi ay walaalnimadooda iyo aan adkeeno macna saas darteed marka waxaan u talagalnay in fasal uu hadlo kadib fasal kale hadlo haddana foo masterka maarta fasal uu hadlo haddana kii kale uu hadlo waa ka insha Allah taala haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa Xamdi Maxamed Yuusuf oo hadli doonta fasalka afraad sacabkii soo dhaweynta waxa giina bismillaah anigoo magay Xamdi Maxamed Yuusuf diini kana socota kalaasta afraad waxaan meeshan kula tartameynaa walaalayaasheena foowan form 2 hadeena guuleystaan insha Allah waan baliyo doonaa hadaan واي قيرده wax sax ah Soomaa qeyrada wax sax ah meeshan qof walba wuxuu soo baxay inuu badiyo soo sax ma waa ka walaasheen marka warku kala go'ay waxa qeyrada keenis waa mahadsan tahay idan way cid kale aan gudbeynaa marka form 2 insha Allah taala oo maanta ilaahay carafka siiyay in qofka uu hadlahay waxaan ku soo dhaweynaynaa Abdullaahi Daahir hadhow صعب كويل كوكو يرسن صعب في عن سي سوى ذنك أي مركب الله حمد عنو درى الله سبحانه وتعالى نقسم معتنا كنا أنا قلنا كوجوليستي ترتنك مركب الله بعد حمد علنا يا مامل كشرفت له معلمين ته أرضي إذا ما نقف كسوق قريب قلي جدي كترتنك مركب حيو حمد علنا ولا علينا فصل كأفراد ما أنت أيوة حنا كنا اللي يوم جولسن نسيب كيا كهيلي qof kasta inuu ogahay afraad waxay yihiin iyo tartanka la soo hore waxa ay sameeyaan nasiibkuna ka yimaana aqoon daramaysa ka ahayn markii aynu macalinaynaa walaalay fasalka tobanaad ee dadaal badan u muujiyay inaan ku guuleysano tartanka aan maanta aan ku guuleysanay aad aan ugu faraxsanahay ku guuleysano assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh way aad u mahadsan yahay Abdullaahi Daahir insha Allah taala haddana waxaan u gudbi doonaa insha Allah taala labada hogaamiye hogaamiyaha aqoonta waaya guddigu waa guddi macallimiintu waa macallimiin kulli ardada wax waa loo wada dhigaa Soomaa laakiin haddana fasal walba macallina waxay wuxuu yiraahdaa warhaye dadaala warjuudi bixiya dardaaran yar oo mar walba yiraahdaa warhaye meesha ka kaca waa dhiirigelin waa intaas insha Allah taala waxaan ku soo dhaweynaynaa insha Allah taala hogaamiyaha fasalka afraad Ustaad Haashim Cali Sulub Cabdi Guuleed igaar kale yiraahdo ساكت مقعد شنشني أفر وها يا أولاد مسكت برقنيس سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد إلهي سبحانه وتعالى مع إسكاله أولا وآخرا حمدي يا مهنقا لسوكو بكرين مركا حيكتا هنا وهم عنا يا ماملك سوكا فروقان marka ka taxawilaya macallimiinta guddiga tartanka waxa ka soo mahadcelinaya ardada si guud ahaan dhamaantood waxa ka soo mahadcelinaya fasaladii tartamayay ee fiina ka soo gaaray fasalka afraad iyo fasalka tobanaad ayagana u mahadcelinaya runtii dhab ahaantii waxyaalaha lagu tartamay tahay ama tartanka asalkiisa hore iyo maqsadka laga leeyahay waxa weeyaan waa aqoon inuu ardaygu wax badan soo aqriyo oo wax soo diyaariyo طبعا waxaan filayaa hadda tan imtixaankii ka bacda ka hor ama tartanku soo bilowday ilaa iyo hadda tan ardaydu waxbay akhrinayeen akhrintaas inuu arday wax raadiyo wax barbaaro wax akhriyo horta maqsadka koobaad laga lahaay oo ardaygu aqoontiisa wax weeyaan ay sare marto kabacdo waxyaabo loo soo dhigay oo ka warhayo oo san halmaamin markii fiinaka la soo gaaro fasalka u dambeeyo oo kursi ku fariiso soo baxane
ayadana waxa weeyaan waxa loogu talagalay waxay tahay in la abaalmariyo ilaa waa fasal iyo arday soo dadaashay oo intaasoo dhan juhdi soo bixinaysay si lagu dhiirigeliyo oo waxa weeyaan dee qofka haddaan la dhiirigelin habsan buu iska noqonaya laakiin qofka mar walba la dhiirigeliyo wuxuu noqonayaa qof yacni waxa weeyaan hami leh oo meel tigsanaya ayuu noqonayaa marka mar labaad iyo mar saddexaad fasallada fiinagsa yimid waa u mahadcelinayaa fasalka kursiga ku fadhiistay ee form 2 tobanaad ayakan waxaa leeyahay ma hadda leedihiin waa nin mahadcelinayaa aqoontiina waxaa sare marto wixiina allah nii barakeeyo dadaalkiina waxay ballantana waxay tahay in la dadaalo dhammaan guud ahaan ardada dhammaantood in aqoontooda kobciyaan dadaalaan si gaar ahaan fasalka tobanaad form 2 oo un bahlayayn hambalyo sidoo kaleto waxaan isagan u hambalyeynayaa saaxiibkii garabkii fadhiyey cabdimaalik mukhtaar xasan maxamed isna waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay kusoo dhawaa mimbarka wadahadalka insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaan meeshan ka salaamaya agaasimaha guud ee iskuulka Al-Furqaan Ustaad Yunis maamulka dugsiga Al-Furqaan xaruntiisa Daarusalaam Ustaad Axmed waxaan ka salaamaya macallimiinta sharafta leh sidoo kale waxaan ka salaamaya meesha guddiga tartanka ardayda tartamayaasha dhammaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaa mahad iskale allahaasoo inoo suurtageliyey inuu si habsamiya noogu soo dhammaado tartankii soo bilowday allahaasaa mahad iskale oo si habsamiya maanta noogu soo gebgaboobay marka waxaan leeyahay alxamdulilaah marka kale waxaan meeshaan ugu hambalyeynayaa fasalkan horjoogaha ugu ahay ee tobanaad ee maanta guusha weyn gaaray ayagana waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad hambalyo sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ardayda fasalka afaraad ayagana dadaalka dheeraadka muujiyey ee nasiibka uu ka hiiliyey tartanka mar kasta waa aqoon isweydaarsi inkastoo ay tahay sunnatallaahi fil kown dunidan mar kasta sheega tusaaloo kale mididoo kale waxaa loogu talagalay inay wax jarto sidaa daraaddeed haddii la tartamo waxaa sunnatallaahi fil kown ah in qolo un ay guusha ee raacdo hataa haddii dadku wax tartamaya ama wax dagaalamaya haddii lacala hataa dagaal u noqdo oo muslin iyo gaal ay dagaalamayaan waxaas marmarka qaar muslimiinta laga guuleysanaya marmarka qaar way guuleysanayaan sidaa daraaddeed mar kasta marka guusha ma ahan xoog iyo awood ma ahan sidoo kalena aqoonta ardaydoo dhan aqoon wada leeyihiin ayaga dhan waa waxbaa la baray laakiin haddana guusha waa iska nasiib waa calaf waa wax qoran weeyaan marka waxaan leeyahay lagama guuleysan fasalka afaraad ee nasiibkii baa ka hiiliyaan leeyahay soomaalina waxay ku mahmaadaa lugulaab lugbeel maala oo micnaheedu laga wado qofka haddee maanta lug u laabmato micnaheedu kama dhigna in lugtii uu beelay marka waxaan leeyahay haddii maanta lugta ay iga laabmatay insha allah sanadka dambaa fidsa doontiinaan leenahay marka qolada xisaabta ayaa waxay dhahdaa marmarka qaar adoo xisaabaad isku dhufsanaya haddii mar eber ay kugu dhex dhuumato xisaabtii dhan waxay wada noqonaysaa wada eber maxaa yeele wax kastoo eber lagu dhufto waxay noqonayaan eber marka waxaan u maleynayaa fasalka afraad waxyaalo badan ay isku dhufsadeen eber aa u dhuumateen u maleynayaa marka waxaan leeyahay eberta sanadka dambe si fiican iskaga sii reeba inkastoo uu nasiibka uu ka hiiliyey marka waxaan leeyahay fasalka tobanaad mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo waad mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu way insha allahu tacaala ardayda waxaan jeclaa lahaa inay joogaan u malaynaa soo ma hal mar inta soo saftaan aad aan u jeclaa lahayn waaya waan sheegaynaa soo magacyadooda waa haynaa waxa la abaalmarinaa fasalkoo dhan waay marka waxaan rabnaa inta soo istaagaan fasalkii oo dhan hadiyadoodana aan u dhiibno hogaamiyahooda insha allahu tacaala kadibna ayagaa tartiib u qaybsanaya waa kaa waaye waan sheegaynaa marka siday u kala horreeyaan waa 34 arday axlaam maxamed maxamuud axmed axlaam soo dhowow soo raac anisa cabdi xasan maxamed soo raac cabdikaafi xasan axmed bakaal soo raac cabdullaahi cabdicasiis maxamed hilowle soo raac ku soo xigso kabtanka saaka u fadhiyey tobanaad cabdullaahi daahir cabdi cali waayahay waxaan ugu xigay cabdirasaaq cabdikariin cabdisamed safkaan noo gala waxirsan waxaa ku xigay ninka la yidhaahdo farxaan cabdirashiid cali kaahiye
waxaa ku xiga ibraahim cabduqaadir cilmi siyaad sacabku waa inaad baas nooga dhigtaan yaa waayahay waxaa ku sii xiga ninka layidhahdo khaalid khaliif jaamac warsame waxaa ku sii xigta inanta la yidhaahdo maryama maxamed xasan wehliye waxaa ku sii xiga maxamed cabdicasiis maxamed ibraahim waxaa ku sii xiga maxamed cabdi muxdiin axmed waxaa ku sii xiga maxamuud xuseen maxamed cigaal waxaa ku sii xigta najma nuur xuseen afrax waxaa ku sii xiga ama ku sii xigta sumaya cabdilcasiis xasan axmed waxaa ku sii xigta samideed sumaya cabdixakiin geelle warsame waxaa ku sii xiga gaarka la yidhaahdo zakariya xaashi cigalle jumcaale waxaa ku sii xigta inanta la yidhaahdo zamzam maxamed cabdirasaaq dinix waxaa ku sii xigta faadumo jamaal cabdulaahi maxamed waxaa ku sii xiga maxamed cabdixakiin khadar xuseen waxaa ku sii xiga salmaan maxamed yuusuf diini waxaa ku sii xigta muna maxamed cabdi faarax waxaa ku sii xigta shukri macalin axmed xasan wehliye waxaa ku sii xigta aamina cabdiraxmaan nuur xuseen waxaa ku sii xigta saamiya cabdixamiid maxamuud jiilaal waxaa ku sii xigta amiira aadam cabdulaahi maxamed waxaa ku sii xigta aasiya axmed xirsi warsame waxaa ku sii xiga aadan mustaf maxamed dhicisow waxaa ku sii xigta nawaal nuur xuseen afrax waxaa ku sii xigta saabiriin ibraahim daa'uud cabdulle waxaa ku sii xigta hibo ibraahim daa'uud cabdulle waxaa ku sii xiga axmed cabdulqaadir cabdi salaad waxaa ku sii xiga ismaaciil faarax cabdulaahi jaamac waxaa u dambaysa kaafiyo faarax cabdilaahi jaamac في إتمامي أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرضي اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه وايه إن شاء الله تعالى هذا فصلك وأنه نيجي labada gruubo gabdhii wiilashaba إن شاء الله تعالى haddana waxaan guddoonsiin doonaa hadiyaddii loogu talagalay galaaska guulaystay ee tobnaad waxaana guddoonsiin doonaa ustaadka kale ee galaaska afraad hogaaminaya ustaad haashim cali sulub cabdi soo dhow ustaadi bacmadooda noo soo bixi sacabka onyaanyuuraadka maa naga diisay walaalayaalo haye soo dhow ustaadi waa kaa ustaadkaa guddoonsiinaya insha allahu tacaala ku wareeji marka insha allah waa kaa bacmadooda waxay ku wareegta maanta macali cabdimaalik insha allahu tacaala haye يا مايا بس ليدي هذيك عدة هذا نوع مع عدة هذا وايه إن شاء الله تعالى مرك ترتنك وصوير حرنينا هل كاسون نوجي هاي ترتنكي سر الدكسيات كان لبضة كون كوي لبضة كون لبي لواتن لنا عكرنا كون أفر بغلافرتي كون أفر بغلافرتي سدح ما أنت أيو نسو جوجوبي إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدي كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرضي اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر فمن الذي سينير لي إظلامي